qaansada eleliska ah oo loo aqoonsaday boqorka hubka qabow waxay lahayd kaalinta ugu muhiimsan hubka meel fog wax ka toogta xilligii dagaalada foolka ah ma ahayn oo keliya mid leh masaafo dheer iyo awood burburin leh balse sidoo kale waxay awood u lahayd inay fallaadhaha si xiriir ah u rido qaabkeeduna wuxuu u ekaa nooc qadiimi ah oo qori si xawli ah u rida markii saliibiyiintu hore u riixeen si ay magaalada u qabsadaan waxay la kulmeen iska caabin adag roob fallaadh ah oo aan kala joogsi lahayn ayaa istaajiyey kuna qasbay inay sugaan daqiiqada gaaban ee cadowgu dib u buuxinayo hubkooda iyagoo ka faa'iidaysanaya daboolka fallaadhaha ay tooganayeen qaansolayda iyaga la socotay waxay isku dayeen inay dhinac ka wareegaan inkasta oo Robin Hood uu si qarsoodi ah ugu soo dhawaaday hadda inta nala soo garatay ku sali nabiga sallallahu alayhi wasallam page-kana follow iyo like ha ka ilaawin mahadsanid qansolihii ugu dambayn waa la arkay wuxuuna ku qasbanaaday inuu gabaad galo markii cadowgu mar kale hakad u galay dib u buuxinta wuxuu ka faa'iidaystay fursadaas qaansadiisana wuu jiiday wuxuuna riday fallaadh dilaa ah markii khatartii meesha laga saaray kooxihii kala firirsanaa si degdeg ah ayay ugu soo urureen bartamaha magaalada laakiin ma aysan ogeyn in caqabada ugu weyn ay weli hor taalo qaansolay badan ayaa horay ugu sugnaa saqafyada guryaha iyagoo ku dhumanaya dagaalyahanadani waxay ahaayeen kuwa aad ugu saxnaa fallaadhaha isla markaana si arxan darro ah ugu dagaalami kara meel dhow daqiiqada gudahood kooxda saliibiyiinta waxay lumiyeen in ka badan kala bar askartoodii kuwii harayna gees ayaa lagu cidhiidhiyey hogaamiyihii ayaa isla markiiba amray in calaamad gurmad la rido askartii derbiyada dibadda joogtay ayaa aragtay calaamadda waxayna bilaabeen weerar culus oo manjaniiqyo ah weerarkaas aan kala sooca lahayn wuxuu sababay khasaaro weyn oo soo gaaray difaacayaasha gudaha magaalada iyadoo meel lagu dhuunto aysan jirin Robin Hood wuxuu ka faa'iidaystay jahawareerka si uu u baxsado laakiin jidka dhexdiisa ayuu si toos ah ugu dhacay weerar hadda inta nala soo garatay ku sali nabiga sallallahu alayhi wasallam page-kana follow iyo like ha ka ilaawin mahadsanid